Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan doonayaa walaal inaan la wadaago dhowr qodob oo ku saabsan buugga la yidhaahdo Faatatnii Salaa. Buuggaas oo si ballaaran uga hadlaya ahamiyadda ay salaadu leedahay. Run ahaantii buuggu waa buug weyn oo macno ballaaran leh. Xaashiyihiisuna waxay ka kooban yihiin 220 page. Buugga idil ahaantiina waxa uu ka hadlayaa salaada iyo ahamiyaddeeda. Marka inagu buugga iyo macnaha ku jira oo dhan ma soo wada qaadanayno. Waxaan soo qaadanaynaa dhowr qodob ilaa 4 qodob meelahaas oo aynu sharaxooga si ballaaran uga hadli doono insha Allah hadduu Ilaahay inoo saamaxo. Intaanu muuqaalku bilaabin, fadlan hadduu muuqaalku ku cajabiyo subscribe, like and share. Haynu gudagalna haddaba mawduuceena. Wuxuu in badan isweydiinayaa ninkan qoraaga ah ee buugga qoray sababta ku qasbaysa oday gaboobay oo cumrigiisu ku dhawaaday 80 sano inuu salaada ilaaliyo oo mar walba uu eedaanku soo dhawaado baad arkayso isagoo masaajidka ku sii socda oo budkiisa yaraa ku tukubayo masaajidka ku sii socda. Maxaa ku kalifaya odayga yar inuu mar walba masaajidka u tago isagoo awooda inuu iska seexdo waayo waa gabooba ma socon karayo inuu iska joogo gurigiisa? Wax kale ma aha. Waxa uu gurigiisa uga imanayo masaajidka u imanayo si uu tukada waxa weeyaan inuu dhadhamiyey macaanka ay salaadu leedahay. Oo macaanka ay salaadu leedahay waa maxay? Macaanka ay salaadu leedahay waxa weeyaan waxay qiyaasi karaan inta yar ee salaadooda ku khushuucdo kaliya mooye. Qof kaloo aan weligii salaadiisa ku khushuucina ma dareemi karo macaanka ay leedahay salaadu. Waayo waa tu Ilaahay quraankiisa uu ku yiraahday wa innaha lakabiiratun illaa cala alkhaashiciin, oo uu macnaheedu yahay way ku adag tahay waa salaada ilaa mooye cala alkhaashiciina, dadka salaada ku khushuuca. Marka inaad salaad tukato iyo inaad salaada ku khushuucdo waxay isku yihiin kaaf iyo kala dheeri. oo waayo midna salaadiiba u dhadhamayso wuxuu og yahay inuu salaadan isagu dan ku qabo oo isagu sideebuu salaada dan ugu qabaa. Waxa uu dan ugu qabaa waxa uu ka dareemayaa salaada dhexdeeda xasilooni iyo deganaansho oo aanay dadka kale ka dareemayn. Qofka kale soo harayna waxa weeyaan qof aan intuu salaada ku jiray aan ku khushuucin oo wax kale ka fikiraya intii uu salaada ku jiray oo dhanba. Qofkaasina ka basha in leeg kamuu faa'iidin salaadu macaanka ay leedahay. Intaa haddaynu kaga nimaadno sharaxii dheeraadka ah aynu buugga u soo noqono imika. Waxa uu leeyahay ninka qoraaga ah ee buuggan qoray eedaanka in yar ka hor mar walba dibadda eegaba waxaan arkaa odayga yar isagoo sii socda oo budkiisa yaraana ku tukubaya xagga masaajidkan oo sii socda. Markaasaan isweydiiyey su'aalo aad u tiro badan. In yar markaan su'aalaha isweydiiyaba waxa ka daba yimaada 100 nooc oo cududaara oo aan u sameynayo si aanan masaajidka u tegin. Miridha kadib amba marka salaada laga baxo haddaan albaabka eegana waxaan arkaa odaygii yaraa isagoo sii socda oo xaafadiisa ku sii socda isla markaana xaafadaha jaarka salaamaya. Markaasaan haddana mar labaad su'aal isweydiiyaa xaggii aan ka sugayay in su'aalaha cududaar aan ka helana ambaan cududaar samaysto sidii salaada markii la gelayayna markan wax allaaliya wax cududaaroo ii samaysmay maba jiraanba. Muddo markan sidaa ku waday waxaan ogaaday in wakhtiga keliya tee cududaarka aan samaystaa uu yahay wakhtiga salaada la sii gelayo. Mar allaaliya marka salaada saa looga baxana wax allaaliya wixii cududaar ahaayoo dhanba ay baaba'aan. Taasina waxay ku reebtay qalbigayga boog weyn oo aan xalkayga raadinayay muddaba. Marka mar walay salaada gaadhaba sidaan dib ugu dhigayay aan odhanayay iminka waad mashquulsan tahay, markaad mashquulka ka baxdo ayaa salaada tukan doonta. Ayay maalmo, wiigag, bilood iyo sannadaba iskureen anigoo weli sidii una mar walba salaad la eedaamo amba la galo 100 cududaar ayaa ii imanayo gebigaygoo maskaxdayda kusoo xoomaya. isla markaana mar walba salaada laga baxana wax allaaliyo wixii cududaar ahaayoo dhan way baaba'ayaan oo meel allaaliya meel ay mareenna ma garanayo. Marka qaybtaas waxa uu kaga hadlayaa ninka qoraaga ahi salaada iyo dib u dhigista, sida ay dad badani markay wakhtiga salaada u gaadho ay odhanayaan goordhow baad tukan doontaa, markay salaadu ay dhaaftana ay odhanayaan dhaaftayba tan iyo ta dambe un tuko. Marka xalka koowaad waa maxay? Xalka koowaad waxa weeyaan si kastaba ahaatee inaan salaada wax allaaliyo wax cududaar aan loo samayn oo haddii aad hawl haysayna hawshaa kale aad cududaar u samayso
waayo salaadu waxa weeyaan tiir ka mid ah tiirarka islaamka oo waa tiirka labaad marka laga yimaado shahaadateynka oo axaadiis aad u tiro badan baa ku soo aroortay salaada iyo oogitaankeegaba. axaadiistaasna waxaa ka mid ahaa xadiisku nebigu yidhaahday sala allahu calayhi wasalam man taraka asalaata faqad kafar, oo uu macnihiisu yahay cidda salaada ka tagtaa way gaalowday. ilaahayna subxaanahu watacaala markuu kitaabkiisa qur-aanka uu ku sheegayay cidda guulaysatay waxa uu yidhaahday qad aflaxa almu'minuun, dadka mu'miniinta ah ayaa guulaystay. intaa laguma joojina waxaa la sii raaciyey aladiina hum fii salaatihim khaashicuun, kuwa salaadooda markay tukanayaan ku khushuuca ee lama odhan kuwa salaada tukada. waxaa la yidhaahday kuwa salaadooda markay tukanayaan ku khushuuca. marka waxaan kula talin lahaa qof waloo islaama inay si kasta ahaatee aanu salaada wax allaaliyo wax cududaara aanu u samayn oo mar walay wakhtiga gaadhaba sideeda uu tukado, waayo maalinta qiyaamaha qof walba camalka ugu horeeya ee laga xisaabinaya waa salaada. qodobka labaad hanu imaado, qof waliba waxa uu ku dadaalaa waxa uu og yahay inuu wax ka faa'iidayo amba waxa uu og yahay dheeftiisa. bal haddii aanad ogeynba inaad salaada wax ka faa'iidayso bal ka war sow si yaroo fudud iskaga gari maysid oo iska dayn maysidba haddaad doontid. marka qof waloo islaama waxaan kula talin lahaa war ilaahay baro oo iimaankaaga siyaadi, markaasunbaad salaada sii wadi kartaa haddaad bilowdo. laakiin adigoon ilaahayba aqoon u lahayn oo aan ogeyn haddii aad salaada tukato waxaad ka dheefayso iyo haddaad iska dayso waxaad ka dheefayso labadaba, dee maxaad salaadba sii wadi? beritoolena waxaad noqon doontaa kii xaggaasun kaga hadhee. bal haddaynu taariikhdeena islaamka aynu dib yaro jalleecno iyo wakhtigii salaada la waajibiyeyba, waxaynu arkaynaa inaan salaada la waajibin islaamku markuu sidaa u soo degay, oo markii nebi maxamed la soo dirayba salaadana lama soo raacin ee salaadu waxay ka dambaysay nebi maxamed sannado doora. inkastoon laysku waafaqsanayn sanadkii salaada la waajibiyey oo qaar culimmada ka mid ay yidhaahdeen waxa salaada la waajibiyey intii aanu nebi maxamed u hijroon madiina 5 sano ka hor. in kaloo culimmada ka midina waxay tidhaahdeen maya intii aanu madiina u hijroon 3 sano ka hor. in kalena waxay tidhaahdeen intii aanu madiina u hijroon sanad iyo badh ka hor. marka layskuma waafaqsanaa sanadkii salaada la sharciyeeyey, laakiin inagu qodobkan u soconnaa qodobkaas ma aha. waxaynu u soconnaa salaada intii aan la sharciyeyn ka hor ayay dadku inta islaamaan ay iimaanka qaadanayeen. oo haddii la idhaahdo salaadii waxaa la soo dejiyey 5 sano ka hor intaan nebi maxamed madiina u hijroon, nebi maxamed maka wuxuu joogay 13 sano. 13 sano marka laga jaro 5 sanona waxa weeyaan 8 sano. haddii hadallada kale la eegana waxay noqonaysaa 10 sano amba 11 sano iyo badh, taasoo tilmaamaysa in asxaabtu aqoon dhammaystiran ay u lahaayeen ilaahay oo ay markii salaadu ay soo degteen ay iimaankooda kusii xoojisteen. marka innaga waxay naga dhiman inaynu ilaahay si fiican aynu u baranno intaanaynu salaada bilaabin ka hor, oo aynu ogaano salaada haddaynu oogno wuxuu ilaahay nagu abaal marinayo, balse haddaynu ka tagnana wuxuu ilaahay nagu abaal marinayo. hadduu qof walba og yahay in haddii uu salaada ka tago laga xisaabinayo maalinta qiyaamaha, dee way yar tahay amba suurtagalba maaha inuu qofku salaada ka tago, waayo caqliga saliimka kumaba siinayo dee wax laga xisaabinayo inaad dayacdo. iminka tusaale yaroo kooban haddaynu soo qaadano, qof baa bakhaar kuu dhiibtay, markaa bil walba markay dhammaato uu kaa xisaabiya, dee markaa waxaad ku dadaalaysaa juhdigaaga oo dhan aad gelinaysaa inaanu hal shay kaa maqnaanin. laakiin haddii inta bakhaar laguu dhiibto layskaga kaa tago adiguna aad sidaad doonto kolba aad u xisaabiso, dee marka dambe waxba kama soo qaadaysidoo wixii laguu dhiibtay iyo ammaanadiina way dayacmayaan. bal haddaba ka waran iyadoo salaada si aad salaadu qiimaha ay leedahay aad u fahanto, bal sheekada yar dhegeyso. asxaabi ka mid ah asxaabtii nebiga ayaa mar walba weysada nebiga u soo dhaabin jiray oo biyuhu ugu sii shubi jiray, markaasuu nebiguna weysada iyadoo diyaara ayuu ku weysaysan jiray. markaasaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebigu isagoo doonaya inuu weysaysto ayaa weysadii uu soo qaadayo iyadoo buuxda ayuu arkay. markaasuu asxaabtii weydiiye ku idhaahday yaa weysadanii soo dhaamiyey. markaasay ku idhaahdeen nebi allo waa hebel. markaasuu nebigu ku idhaahday maxaan kuugu duceeyaa? markaasuu ku idhaahday nebi allo waxaad igu dacaysaa inaan maalinta qiyaamaha aan kula rafiiqo oo aan jannada agtaada galo. markaasaa nebi maxamed wuxuu ugu jawaabay haddii aad doonaysa inaad maalinta qiyaamaha ila rafiiqdo anna waan kuu ducaynayaaye adna waxaad igu caawisaa sujuud badnaantaada. wakhtiga ugu badanee la sujuudaana dee waa marka salaada lagu jirown,
markaa salaada qiimaha ay leedahay waxa weeyaan heer aad nebi maxamed la rafiiqayso maalinta qiyaamaha haddii aad salaadaada wanaajiso ood sunnayaasha ilaaliso ood ilaahay si fiican ugu xidhnaato. xadhigga addoonkii ilaahay u dhexeeyaana waa salaada. marka carruurta salaada lagu barbaarinaya haddii la baro ilaahay iyo nebiga iyo dadkii wanaagsanaayo dhanba oo lagu idhaahdo dadkaas wanaagsan saasay samayn jireen aduna saa samee, waxaa laga yaabaa inuu ilmaha yar intuu qaato aan weligii salaada ka tegin. laakiin haddaynu salaada keliya taa aynu barno aynu ku idhaahno salaada saasaa loo tukadaa, sidaasaa la idhahdaa, oo aanu ogeynba waxaanad u sheegaysaa faa'iidada uu u leeyahay, dee muxuu ilmaha yar salaada ilaalin wuxuu moodaya aan wax lagu qasbaye. laakiin wanaaggeega haddaynu sheegno waxaa laga yaabaa inuu salaada jeclaado oo aan weligii sii dayn. marka waa maxay xalku? xalku waxa weeyaan inuu qof waliba uu diinta islaamka si fiican uu u barto, gaar ahaan salaada iyo waxay ku waajibayso iyo shuruudaheega oo dhanba. qodobka saddexaad waxa weeyaan in aad ku sugnaato salaada oo aanad marna ka tegin marna aanad tukan, si aad ula qabsato oo aanay kuuga adkaan inta dambe oo dhan. qodobka afraad ee u dambeeyaan maanta kusoo koobayno barnaamijkeenu waxa weeyaan dhiirigeli naftaada oo ku dhiirigeli inaad salaadaada khushuuc yeesho, si ay salaadaaduna ay u noqoto mid waxtar leh aduna salaada u jeclaato. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.